بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan doonaynaa saaka saacadan oo ah kowdii iyo miridho aanu joogno xaruntii dhexe xisbiga kulmiye jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa aanu ka soo baxnay afartayda halkan taagan doodii saaka dacwadii hore ee laga gudbiyay gudoomiyaha xisbiga uu ka gudbiyay gudoomiyihii hore ee golaha dhexe wixii aanu kabid hadal ahaa oo saakan loogu yeeray ayaanu doonaynaa inuu ka warbixino waana lagama maarmaan si aan dadweynaha ama bulshada reer kulmiye taageerayaasha kulmiye aan loo madal hufin in sida wax yihiin iyo xaqiiqada marba aan la socodsiinaana waa lagama maarmaan kumaanu hadal badnayn arrintan laakiin maadaama saaka dadku ay dhiga u taagayeen sida wax u dhaceynaya sida wax u socdaan waxaanu doonaynaa inaanu dadweynaha taageerayaasha reer kulmiye ee dalka dibadiisa iyo gudihiisaba jooga aanu gaarsiino saaka sida wax u dhaceen marka hore waxaanu mahadnaqayaa gudida diiwaangelinta ururada iyo axsaabta siyaasadda qaranka gudida waanu mahadnaqayaa runtii si wanaagsan oo odaynimo leh oo mas'uuliyad ku dheehan tahay oo sharaf leh oo deganaan leh ayay hawsha saaka u galeen waxa iyana ka soo qayb galay oo joogay mas'uuliyiin ka socota labada xisbi qaran ee kale wadani iyo ka waxa joogay oo iyana aanu mahadnaqaynaa komishiga xuquuqul insaanka qaranka xubnayana ka joogay waxa joogaanu mahadnaqaynaa ururka looyarada jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka socotay waxa iyana joogay oo aanu mahadnaqaynaa ururada bulshada rayidka ah ayaa joogay waxa joogay miidiyahaas ama saxaafadda qaar ka warbaahinta qaar ka mid ah baa joogay waxa joogay dad fara badan oo kala duwan akaademiga nabadda dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanay runtii taasi na tartay ama ay dadka tartay inay ogaadaan xaqiiqada meesha jirta iyo sida wax yihiin iyo sida wax u socdaan iyo beenta dadka laga buuxiyay gunteedii xaqiiqada inay ogaadaan bay taasi annaga saaka wax weyn noo tartay saaka waxaanu tagnay 8 iyo barkii baanu tagnay goobta afartayadani ballankuna waxa 9 inay doodu bilaabanto ilaa 9 jarjar waxaanu sugaynay darafkii kale ilaa 9 siyaado ay yimaadeen markay yimaadeenna doodii toos bay u bilaabantay waxaan doonayaa inuu ummadda fahamsiiyo oo jamhuuriyadda Soomaaliland aan u sheego oo taageerayaasha xisbiga kulmiye aan u sheego saaka waxa laga hadlayay iyo waxa dacwadu ka dhaxaysa maaha laba dhinac oo kulmiye ah maaha laba daraf oo kulmiye ishaya waxay ka dhaxaysaa gudoomiyihii hore ee golaha dhexe ayaa wuxuu dacweeyay gudoomiyaha xisbiga maxamuud jaamac arfaa oo ahaa gudoomiyihii hore golaha dhexe ayaa wuxuu dacweeyay oo dacwad ka gudbiyay gudoomiyaha xisbiga maxamed kaayin axmed oo uu leeyahay ma laha awood igaga saaro golaha dhexe ama uu xilka igaga qaado ama xubinimada igaga qaado horta nuxurka dacwadda meesha yaala waa intaa waxaan kale dadka loo sheegay lagu madal hufinayo xisbi baa labadiisa daraf baa doodaya laba dhinac baa doodaya laba dhinac oo xisbigani leeyahay ma jiro xisbiga 6 xubnood ee hoggaanka xubnihiisa gudida fulinta golihiisa dhexe wixii xarunta xisbiga joogaan oo halkan ay diyaar ku yihiin oo halkan marka ma jiro laba dhinac oo xisbigu u qaybsan yahay oo doodi ka dhaxaysa haddii cid dood qabta ay jirto maxkamadaha way ka furan kartaa meel kale way ka furan kartaa laakiin dacwadda socota waxa weeyaan dacwadda u dhaxaysa gudoomiyihii hore golaha dhexe iyo gudoomiyaha xisbiga waxa yimi saaka anoo afartan aan ku tagnay iyana afar bay ku yimaadeen maxamuud jaamac arfaa oo ninka dacwoonaya halgamaa axmed xasan aadan axmed way sacade iyo labadooda looyar laba looyar ay wateen afartaasa yimi annaguna waxaanu ahayn xogayaa guud ee xisbiga anigu cabdikariin xanifa iyo labada looyar runtii qiimayna waanu wadnay dacwaddeeda doodeena waanu dhiibanaynay waxaa noo soo baxday maadaama anigu muducaan aan ahayn iyagu muduc ay ahaayeen oo hadalkay ku horreeyeen inay ahaayeen rag aan soo diyaar garoobin ama diyaarsanayn xeerarkay siteen laba xeer oo kala nooc bay siteen xeerar xisbigu bari hore ka guuray bay
siteen waxay siteen liiskii golaha dhexe 2019 kii 2020 may sidan doodoodu way ma ahayn dood runtii aan oran karno waxay ahayd dood macna weyn sameynaysa xagga kamay hubaysnayn xagga hadalka iyo nooca hadalkana runtii kamay hubaysnayn waxaan aad ugu mahadnaqayaa labadan looyar oo muujiyay mas'uuliyad iyo akhlaaq iyo aqoon iyo edeb iyo anshax wanaagsan intaba muujiyay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka arintaas waanu ka hadalay way ka hadleen 35 minute bay ka hadleen annana 35 minute baa looyaradeedu ka hadleen 15 minute oo dambe la siiyo laga hadlayay waxyaalihii ay ku dacwoonayeen ee ay dafirayeen oo live oo video ayaa looyaradu soo dhigeen arintaasina afkala qaad bay ku noqotay iyaga faahfaahin doona wixii dambe gudida diiwaangelinta ururada runtii sidaan walba ugu kalsoonay baan ugu kalsoonahay cadaaladna waanu ka filaynaa waxaa jira oo aan maqlayay saaka inaan ka hadlayo meel oo leh haddii kulbiya sidan laga yeeli waayo nabadgelyo daraa dhacaysa inaad nabadgelyada adna wax ma yeeli kartid nin kalena wax ma yeeli karo dalka nabadgelyadiisu way raasukhday oo way fadhiisatay oo meel bay ururtaa dawladda dalku waa leeyahay cid wax saaran nabadgelyadana waa leeyahay adna wax ma yeeli kartid nin kalena wax ma yeeli karo nabadgelyada wadanku way jiraysaa haddaad ugu hanjabayso bahabaha in badan lagaaga aamusay idina kaaga aamusi mayso adiga yay wax ku yeelintaa doonaysa dalka wax ku yeeshaa adiga shakhsiyadaada naftaada yaani wax yeelin adigu ha is cawarin sharay isaga talaabsan adigu ha is cadibin malaa in lagu xidhaa doonaysa leeyahay waa la xidhayo bariyahan buu xidhnaayo meelaha laga hadlee waxba cidina ku xidhi mayso laakiin jooji arrimaha wado had iyo jeer waxaan uga baxayaa wixii aan dhaafay ku dari doonaa xogeeyaha guud ee xisbiga dabadna looyarada wixii sharci ku saabsan ka hadli doona ayaa yana hadli doona insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هتسيهاي عبد الكريم ورنتي ده ورك معديسي هالكن يدكسيي وهم ما كدر لها توضفت كي هالكا كدعدي ساكا حرونتا جودة ديوان جرينتا وردا يعني سنتا حسابته وحيد ميت رنتي وكم وغضب بالسيل iyo runtii dimuqraadiyad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadnaqaynaa gudoomiye Saciid iyo tiimkiisa iyo sidii ilbaxnimada lahayd ee adaabta lahayd ee ay doodafeedkii halka ka dhacday u dhageysteen waxa sidoo kale mahadnaq naga mudan dhamaanba ururadii bulshada ka soo qayb galay axsaabtii siyaasadda oo runtii ka iyo wadani oo ayaguna soo dirsaday xubno iyo cayaantii kale halka joogtay dhamaantood si guud baan ugu mahadnaqaynaa inta markaan ka yimaado sida runtii qofna sharciga kama weyna no one is above the law maxamuud jaac warfaa gudoomiyihii hore ee golaha dhexe haddii uu ku xadgudbay siyaasadda xisbiga oo uu ka hor yimi barnaamijkii xisbiga oo uu bilaabay shirar iyo maxaan ku raahdaa kulanno uu kaga soo horjeedo siyaasadda xisbiga wax u damaanad qaadaya inuu xubin ka sii ahaado ama uu sii haysto maxaan ku raay booskiisaasi ma jirto taasina waxay ku caddahay looyarada idinka warbixin doona ee xeerka xisbiga ayay ku caddahay sidoo kale waxay ku caddahay xeerarka dalkeena u yaala ee la xiriira ama lagu dhaqayo axsaabta siyaasadda iyo dastuurkeena intuba waxay ballan qaadeen in aan la qaybin dadka oon qabyaalad loo horseedin in aan siyaasadda xisbiga laga hor imanin in maxaan ku raahdaa wax kasta oo lidi ku ah markaa jahaynta ama siyaasadda guud qofkii ka hor yimaada inaanu sharcigu u damaanad qaadaynin qof kasta anigayga idin la hadlayo xogay guudna ha noqdee haddii uu ka hor yimaado siyaasadda xisbiga waxa way saasoo kale baa laga yeelaya waxa weeye xeerarka xisbiga iyo xeerarka qaranka way isxoojinayaan dhammaanba sida looyaradu ay idiin sheegi doonaan waxay muujiyeen in maxamuud uu ku xadgudbay xeerka xisbiga sidaasaana dibadda loogu saaray markii horena jaanis baa la siiyey jaaniskii la siiyey wuxuu ahaa in shaqadii laga hakiyey balse ma joogsan ee wuxuu ku kacay faldambiyeedyo kale oo sii raacsan maxaan ku shaqo joojintii kuma joogsan qofkuna waa iska qaacido jirto hadduu hal qalad galo 10 qalad oo kale qofku sii gala maxamuud waxa weeyaan markii laga joojiyay shaqada wuxuu ku kacay in uu awoodii ama legitimacy xisbiga hoggaankiisa iyo golayaasha xisbiga inuu ka dhigo barkumataal in sharciyada ka dhamaatay
oo uu yidhi meeshaa sharciyada ma jirto oo structureka xisbiga uu duray waxa uu ku kacay in uu shaambad been abuura samaystay oo forgery taasoo runtii ah criminal waxa uu maxamuud ku kacay in uu la hadlo warbaahinta isagoo sheegay gudoomiyaha sharciga ee xisbigani leeyahay xisbiguna qawaaniin buu leeyahay dalkuna qawaaniin buu leeyahay iyadoo kuwa loo adeegsanayo waxa laga saaray booskii markaa gudoomiyaha golaha dhexe oo dibadda looga saaro xubinnimadii markaa uu ku waayay wax waliba farac iyo asal bay leeyihin xubinnimadii markii uu waayey waxa uu waayey sidoo kale booskiisii maxaa ku raay golaha dhexe ayuu waayey sharciyadda xisbigaana loo adeegsaday sidaynu la soconno fulinta xisbigu waxa weeyaan awoodda marka laga yimaado golaha dhexe uu xisbigu leeyahay iyagaa ka awood badan hoggaanka waxa weeye structureka xisbiga marka la eego general assemblyga ugu awood badan golaha dhexe ku xiga fulinta ku xigta hoggaanka ayaa ku sii xiga sidaa laajigeed iyagoo oo gudanaya roolkooda iyo waajibaadkooda shaqo ee toddobaadlaha ee maalinlaha ah waxay ka fadhiisteen iyagoo tixgelinaya oo dib u eegis ku samaynaya maxamuud iyo ka joogsi la'aanta uu dambiyadu ku kacayo in ay ka saaraan meesha shir aan caadi ahayn baana lagaga saaray maxamuud oo maxaa ku dhahay wada saxeexan xubnihii ka soo qayb galay fadhiyey xogayaha guudna ku saxeexan yahay marka durista ah xogayaha guud waa magacaabis kama qaadi karo mana saxeexi karo waxa weeyaan waa arrin aan waxba ka jirin xogayaha guud waxa weeye waa legitimate waa sharci shirkii golaha dhexe ee ka dhacay burco ayaa awoodiisii maxaa ku dhahay xogayaha guud saynu la socono kor loogu qaaday waxaana laga dhigay gacantaag ee magacaabis maaha taana aqoon darro xagga sharciga iyo dastuurka xisbiga ka haysata ayaa ka muuqatay xubnihii u doodayay ama wakiilka u ahaa maxamuud ee saaka halkaas kugu yimi waxaan u sheegaynaa maxamuud qofna kama weyna sharciga maxamuud taasaa loo adeegsaday maxamuud waa nin saaxiibkaya ah wax si beersanaal ama annaga shakhsiyan naga dhexeeya ma jiraan oon ahayn sharciyaddii xisbiga un baanu u marnay iminkana waxaanu jecel nahay inaanu meelaha asaga iyo tiimka la socda ee farakutiriski inaanay ka buuqine oonay nabadgelyada iyo maxaan ku dhahay qalalaase aanay gelin aanay isku dayin inay geliyaan maxaan ku dhahay shacbiyadda xisbiga waxaan u sheegaynaa haddii ay kalsooni ku qabaan guddida diiwaangelinta ururada iyadaa maandheedu haysato u xil saaran ka garnaqa isqabsiyada xisbiyada ka dhaca inay ku kalsoonaadoono sugaan muddadaa ay qabteen 14 cisho ah oo ka bilaabmaysa salaasada soo socota haddii alla yidhaa 2-3 cisho ka horreeya salaasadana wixii ay xogtooda caddaymo u hayaan ama backup u hayaan in ay soo diyaarsadaan annaguna taasaanu runtii ku taagannahaan soo diyaarsanaynaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dadkii ka soo qayb galay oo ugu horeeyaan labada lawyer maxaan ku dhahay cabdilaahi iyo muxuu ahaayeen iyo xuseen oo runtii bisayl uu ka muuqday mihnadooda inay niman aan xanaaqayn oo etigiskii lawyernimada runtii saaka halkii dadka ay ka markhaati kaceen inay yihiin niman akhlaaq badan oo si doodooda kalsooni ku dheehan tahay ay maxaan ku dhahay u dhiibtay ayagoo ka duwanaa lawyeradii kale meesha yimi oo maxaan ku dhahay dadka durayay oo caadifadi ka muuqatay oo saddexda xisbi duray maxaan ku dhahay si guud u duray saddexda xisbi oo maxaan ku dhahay commissionkii xubnihii meesha ka joogay gudoomiyihii hogaaminayay duray oo maxaan ku dhahay timingkii iyo waqtigii ayna siiyeen aan ku kalsoonayn mar walba maxaan ku dhahday ka xanaaqsanaayo lahaa waqtiga noo kordhiyay iyo maxaan ku dhahay waqtinaha noo qabanayn oo durayay oo sidoo kale durayay axsaabta oo sidoo kale durayay maxaan ku dhahday xisbiga iyo hogaamkiisa marka bisayl kama muuqan baanu leenahay waan idinka mahadnaqayaa runtii bisaylkaa idinka muuqday waxaan u sheegaynaa haweenta kulmiye warku wuxuu ku urursan yahay inagoo nabadgelyada dhowrayna inagoo sharciyadda xisbiga dhowrayna inagoo dareenka qalbiyada shacbiyadda xisbiga iyo taageerayaashiisa dhowrayna waxaanu leenahay ha lagu kalsoonaado oo waanu kalsooni buuxda ayaanu anaguna siinay guddida maxaan ku dhahay diiwaangelinta ururada iyo axsaabta siyaasadda sharciyadda qaranka u dejisan iyo taa xeerka xisbiga kaga garnaqayaan baananu ku siinay kalsooni buuxda taasaynu inaguna ka war sugaynaa wixii ka soo baxana 14 cisho kadib judgmentkooda insha allah waynu u wada joognaa intaasaan jeclaya inaan kusoo gabagabeeyo iminkana waxaan ku wareejinayaa lawyerada waxaan u yeedhayaa xuseen oo isaguna cabdillahi kusoo dhaweyn doona asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم anagoo ah qareenada xisbiga kulmiye ku mataliyay dacwadaasi maanta qabsoontay ee ka hor dhacday guddida diiwaangelinta ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland ugu horreyn waxaan u mahadnaqaynaa guddida oo muujisay cadaalad iyo inay si siman u siisay dhinacyada waqtiyo siman oo ay ku wada hadlaan isla markaasina ay doodooda ku soo gudbiyaan nuxurka dulucda dacwaddu wuxuu ahaa maxamuud jaamac warfaa oo ahaa gudoomiyihii hore golaha dhexe ee xisbiga kulmiye sifihii looga saaray oonu ku doodinay annagu inuu ahaa sifo sharciya oo waafaqsan dastuurka xisbiga kulmiye
iyo xeer number 14 2023 inuu ahaa sharci iyo inaanu sharci ahayn bay ahayd dulucda dacwadda meesha taallay duluc kaloo intaa ka baxsan oo guddidu haysay may jirin kaliya waxay ku koobnayd annaguna aan mar walba ilaalinaynay nuxurka dulucda dacwadda waxaad maqlayseen in marar badan laga hadlayay waxyaabo kaloo ka baxsan dulucda dacwadda oo warbaahinta hadday noqoto annagu mar walba waxaan ilaalinay professionka qofku etigiska lawyerku waxa weeyaan inuu ilaaliyo sirta macmiilkiisa waxaad arkaysan waraaqo wareegay facebooka oo dacwadiya qareenno kaloo qoraal la soo qorayay annagu mar walba waxaan ilaalinaa etigiska muwakkiliinteeda xisbiga kulmiye maadaamuna aaminay maadaamuna qareennadiisii nahay waxaa nagu waajiba mar walba inaan ilaalino etigiska iyo akhlaaqiyaadka qofka qareenkaa nogala baahan yahay sidoo kale xeerka qareennaduna farayo mar walba waxaan ilaalinaynay markaas aan iska xil saaranay documentiska weli kumayda arag jawaab celin xisbiga kulmiye leeyahay oo facebooka wareegaysa maydaan arag qoraal kale oo xisbigu leeyahay oo facebooka wareegaya facebook maaha guddidii garnaqaysay ee qaadaysay dacwadaha mana aha meel loo irkado oo loo qeylo dhaantirsado ee guddida ayaan anagu mar walba documentkayga gudbinaynay maantana aanu doodeeda iyo nuxurkii dacwadeeda oo ka koobnaa qodobkaasi aanu gudbinay waxaanu guddida ka sugaynaa inay soo saarto go'aan waafaqsan xeerka iyo documentskii iyo cadaymihii aanu gudbinay aad iyo aad u mahadsan cabdullaahi baan kusoo dhaweynaya رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين ما أنتوا أي تاريخ تهاي استدي 8 أبريل 2026 waxaa gudda diiwaangelinta iyo ururada iyo ansixinta asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay u fariisatay dacwad u dhaxaysay gudoomiye Maxamed Kaahin oo la soo dacweeyay ahna gudoomiyaha xusbiga kulmiye iyo xubin hore golaha dhexe gudoomiyaheedii hore Maxamuud Jaamac Warfa dacwadda oo maanta doodafeedkeedii iyo cadeymaheediiba la gudbiyay oo aanu dhageysanay oo aanu gudbinay guddida ay dhageysatay runtii waxaan ugu mahadnaqayaa guddida sida fiican ee xilkasnimada leh ee daacadnimada leh ee dhexdhexaadnimada leh ee u dhageysay dhinacyada oo dhinac walba ay u siisay waqtigii ku filaa iyo intii ay ugu tala gashay in dacwaddu ay qaadato aad baan ugu mahadnaqayaa xalay waa mahadsantiin guddida xusbiga kulmiye waa xusbi qaran waa xusbi guuna waana xusbiyada ugu da'da weyn siyaasadda Soomaaliland soona hogaamiyay oo laba madaxweyne ay ka soo baxeen laba kala doorasho oo madaxtooyo xusbiga kulmiye maadaama uu sidaa yahay xusbiga kulmiye marka koowaad sharciyan shahaadadiisa liisanimo wuxuu gudoomay 31 December 2024 taasoo uga bilaabmaysa mandatekiisa 10 sano ee liisanimada xusbiga uu haystaa 1 January 2025 intaa kadib xubin hore gudoomiye Maxamuud Jaamac Warfa oo soo dacweeyay gudoomiyaha xusbiga kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed waxaanu aad uga xunnahay kana yaqiiqsiinay arjiga dacwad furasho ee dulucdiisu ahayd inuu garan waayay cidda uu dacweynayo Maxamed Kaahin ma aha qof shakhsi oo meel jooga wuxuu leeyahay legal personality sida shuruucda iyo sharciyada waddanka ay ogasho waa gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee kulmiye waqti xaadirkan ciddii soo dacweynaysana waxa lagama maarmaan ah inay ku soo dacweyso legal personality-ga uu leeyahay waxaanu aad uga xunnahay in dulucda dacwaddu cidday khusaysay iyo wixii goobta ay ku soo bandhigeen qareennadu aanay islahayn run ahaantii aanay ahayn laba wax oo wada xidhiidha ahaydna doodoodu mid iska hor imanaysa oo aan waafaqsanayn kuna dhisnayn tiir adag oo sharci maadaama waxa lagu kala baxaya ay tahay sharciguna uu yahay wax qoran ee aanu ahayn wax uu qofku jecel yahay in looga dhigo intaa kadib xusbiga kulmiye shahaadada liisanimada wuxuu ku qaatay qodobka 26aad ee xeer wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ururada siyaasadda Soomaaliland sidaana wuxuu ku haystaa mandate ah 10 sano 10 sano waxa ugu jira inuu qabto shirweynayaashiisii hadday tahay golaha dhexe iyo hadday tahay shirweynihii guudba waxaanu ku jiraa mandatekiisii saxda qodobka koob iyo kontonaad ee isla xeerka ayaa isaguna waxa uu tilmaamaya in xusbiga hore wuxuu oranayaa qodobkaasi xisbiyada la siiyay shahaadada sanadkii 2012 iyo kuwii qaatay 2022 in lagu wada dhaqayo ahkaanta ku dhigan xeer lambar 26 taasoo macnaheedu ay tahay in xusbiga kulmiye liisanimadiisa saxda ah ee uu haysta ee uu guddida diiwaangelinta ka qaatay ee maalintii lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinka ay u soo gudbiyeen guddida doorashooyinka guddida ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta ay ku siiyeen shahaadadiisa liisanimo sidaana uu ku haysto shahaadadiisa sharciga waxna aanay ka jirin dooda lala fadhiyo media
ee aan salka sharci lahayn ee maxamuud jaamac warfaa guddoomiyihii hore ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu la soo taagay taasi waa intaa sidaa la ajligeed si waafaqsan dastuurka xisbiga kulmiye guddida fulinta way fadhiisatay waxaanay ka fadhiisatay xubinnimo kala noqoshada ama xubinnimo ka saarista maxamuud jaamac warfaa xisbiga waxay soo saartay bayaan iyo warqad leh minidadeedii iyo taariikhdeedii iyo xubnihii fadhiga fadhiyey ay ku wada saxeexan yihiin taana guddoomiyaha guddida waanu u gudbinay waxaa kaloo u gudbinay cadaymihii miidiya ee mar walba uu la soo taagay maxamuud jaamac warfaa ee sheegashada sifaha qaldan ee uu ku sheeganayo taasoo lagu mutaysan karo ciqaab inuu qofku sheegto wax aanu ahayn sidaa la ajligeed xisbiga kulmiye waxa uu ku taagan yahay dhabihiisa sharciga ah xubinnimo kala noqoshada maxamuud jaamac warfaana waxa uu maray dastuurka xisbiga kulmiye iyo xeerarka dalka u yaala sidaa la ajligeed maanta laga bilaabo dacwaddii waa la dhegaystay waxaynu sugnaa waa go'aankaasoo qaadanaya muddo 14 cisho ah si waafaqsan xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland taageerayaasha xisbiga kulmiye dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inaanay ku dhagabarjoobin wararka ku jira kuteenkii miidiyaha maray ay mar walba la socdaan page-ka xisbiga kulmiye iyo wararka saxda meesha laga helayo aad iyo aad ba mahadsantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.